dareemani waxa uu sabab noqday inay noqoto mid ku soo hanuunta oo qaadata diinta islaamka. intii ay noolaydba waxay ahayd mid ka shakisan diinta ay haystaan waalidkeed, mar kastana ku gacan saydha caadooyinkooda ay haystaan iyagu. waqtigii ay yarayd ayaa waxay ogaatay inay diintan ay ku sugantahay aanay xaq ahayn oo aanu caqliguna qaadan karin in la caabudo asnaamta iyo waxa la midka ah. mar kastana waalidkeed waxay su'aal ka weydiin jirtay diintan ay haystaan, waxaanay ku odhan jirtay maxay diinteennu uga sheegi weyday diinasooraadka iyo waxyaalahaas wax la mid a. markay wax jawaaba u weyday su'aasheedii, gabadhan laydhaa Tony si degdeg ayay diintii uga baxday, waxaanay raadisay waddo kale ama diin kale oo ka wanaagsan tan. kadib markii xanuunkan ay ku sheegeen dhakhaatiirtu, waxay isweydiisay talow miyaanu jirin ilaahay abuuray ama dhakhaatiirtanba abuuray kaasi oo awooda waxaanay cid kale awoodin, caafimaadkuna gacantiisa uu ku jiro.